hawlaha arlada haddi lagugu aamino ummadda uu shaqeeyo adeega laga dhigo qol oo lahaa runtaa ujeedadiisa ayaa laga rabaa ay furan idinkuma arkaysid shaqaha aadin ay furan idinkuma arkaysid qaranka iso min xilqaaday eebkadiya awlaha asladaha haddii lagugu aamino ummadda uu shaqeeyo adeega laga dhigo orodiyo waxqaba aslubsanan ayaa laga rabaa. bismi illaahi araxmaani araxiim. daawadayaasheena qiimaha leh warsan t v assalaamu calaykum waraxmatullah. meel kastoo aad naga daawanaysaan haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeeni runta ka sheeg ee aad ugu barateen in aan idinka baahino warsan t v tv-ga caalamiga ee soomaaliya. barnaamijkan waxaa marti inooga ah brofesor maxamed cumar tabxa oo hore u ahaan jiray gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka soomaaliya oo haatana ka tirsan xubnaha baarlamaanka ee soomaaliya. haddaba brofesor maxamed cumar tabxa haatan wuxuu qadka toob hoos ugu jiraa isagoo ku sugan magaalada muqdisho. waxaanu ku martiqaadnay barnaamijkan runta ka sheeg. mudane habeen wanaagsan. habeen wanaagsan cali adiga iyo mamlakada inta ku nool iyo bariga dhexda. mudane bal kaftayar haddii adoo raalli aanu ku bilaabno intaanu u gelin barnaamijka siyaasiga ah, haddii aan kula kaftamo in yar xalayto mara qadka kuu soo galay goor ahayd 8 fiidnimo ee waqtiga magaalada muqdisho si aan kugu baramiyo ama kugu martiqaadnaba barnaamijkan runta ka sheeg ee caawa aanu ku kulanayba. hase haddii waxaan markaas ii muujisay inaad bajiifatay ama aad isku diyaarinaysay maqaraxyada iyo cabsi amni ayaa ka jira degdeg ugu saaxatay mise si kala wey? cali waana caafimaad qabay alxamdulilah. goobta aan maanta deganahayna ma jirin wax dhibaato ah. marka iyadoo howlo fara badan shalay seminaar ay soo diyaarisay hay-adda un-ka ee umbos la yidhaahdo iyo wasaaradda arrimaha qoyska iyo haweenka oo noo soo dhamaaday 3 maalmood noo socday daalkiisa ayaa markaan tukaday cishaha wixii ka dambeeyey aan si diyaariyay sheexda. marka sideeda kale waa caafimaad qabay, cabsina ma jirin. waatay marka taa haddii aanu ka leexano mudane aanu toos u abaarnaba arrimaha siyaasadda, adigana waxaa tahay siyaasi gaamuurey horena aad usoo qabatay xilka gudoomiyaha koowaad ee golaha baarlamaanka soomaaliya. mudane haatan waxaa dib usoo laabatay isqabsqabsi horeba caado ugu ahaan jirtay xubnaha baarlamaanka soomaaliya. laba dhinacna waa loo kala jabay oo arrinta ku saabsan iyadoo koox ayaamahama ku shiraysay hotelada ku yaala magaalada muqdisho qaarkood ay soo saareen in ay ka qaadeen ama ay ka qaadayaan xilka gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya. adigu labada dhinacay baa taagan tahay? aniga waxaan taaganahay dhinaca sharciga uu taagan yahay xadiga qaran iyo xeerashaadka baarlamaanka. waa maxay marka dhinaca maxaad ku taageertay dhinaca kale aad isleedahay waa sharci? mar waliba sharciga isaga ayaa ah kan haddii sidii uu u dhignaa loogu dhaqmo uu noqon doono midka guuleysanayo. haddii aan markaasi wax power abuse aan lagu sameyn ama ku xadgudub sharciga oo aanan awoodda isla haysiinin cid kale takrifalna aanan lagu samayn. maxaa yeelay qof kasta oo mas-uul ah min madaxweyne ilaa iyo kan ugu hooseeyo hay-adaha dastuuriga, baarlaman, xukuumad iyo garsoor ama ha noqdaano figuriska sarsare ee prime minister iyo gudoomiye baarlaman iyo madaxweyneba. nin walba waajibaadka uu leeyahay halkaas uu ku yaalaa. qofna haddii isaga uu ka baxo wixii isaga loo idmaday sharciga inuu qabto
ayaa qoran haddii hadda sharciga uu qaban waayo waa nin ku jooga itaalkiisa iyo awoodiisa aanan ahayn nin ku taagan ama ummadda soomaaliyeed ku matala wax waafaqsan nidaam iyo sharci. waa tahay mudane kooxda hadda ama xubnaha baarlamaanka kasoo horjeedo gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya waxa ay markaa cuskanayaan qodobka 15 faqradiisa 3 ee xeer hoosaadka baarlamaanka soomaaliya oo ay leeyihiin wuxuu ku xadgudbay qodobkaasi. marka qodobkaasi adigu haddii markaa adiga ogaantaadu ma u sharxi kartaa ummadda soomaaliyeed caawa ku daawanaysa? runtii inaad israacisa ayay ahayd qodobka mar haddaad sheegtay inaad u akriso si ay ummadda maaragtay dhammaan ay u wada ogaadaan waxay iskabeen xubnaha baarlamanka ka tirsan ee kasoo horjeeda gudoomiyaha baarlamanka. laakiin aniga sida guud ahaan ee ay u taagan tahay dooda iyo muranka jira haddii aan tusaaleeyo dadka soomaaliyeed ayna dhegeysanayo intaba waxay ku qotamaan howlaha baarlamanka oo muddo soo jiitamayay wax badan runtii shuruuc iyada oo qoran sidii ay ahayd aanan loogu dhaqmin. baarlamanka oo asagana howl maalmeedkii uu lahaa iyo wixii ay ka sugaysay ummadda soomaaliyeed isagana intii uu mudnaa ee aanan runtii ku habsami aanan u shaqayn. marka isqabqabsi ka yimid madaxda sare ee dawladda oo soo gabagabayntii iyo gunaanadkii meelihii ayaga ay la tageen inay kusoo heshiiyaan wixii iyaga ay soo gaareen aananu noqon wax baarlamanka si fiican inta isaga uu uga daaraan degay isagoo qanacsan dadka soomaaliyeedna codkooda isaga uu ku fadhiyo xildhibaanka isagoo garanaya wax uu markaasi cod ku bixiyey ama uu ku waafaqay balse iska ahayd wax badan howlaha baarlamanka jaantaarogan qodobada iyo barnaamijyada iyo ajendayaasha qaarkooda kuwa laga fiirsan. howl maalmeedka baarlamanka si joogta a loo baahan yahay inay hawshiisa ay usii socotana mid howl dab ah oo aan baarlamankaba muddo shaqadiisii ay ahayd mid aanan maaragtay darbar ku socon. mudan adigoo raalli ahaa mudan professor dalxa inta badan hadda waxaa la leeyahay soo baxaysaba dadkan waxay ku shireen kooxda baarlamaanka kasoo horjeeda gudoomiyaha baarlamaanka meelo hoteelo oo magaalada muqdisho meelo kamid ah iyo inbay ku shireen. haddiiba guriga baarlamaanku ayba ku shiri lahaayeen markaa ma arrintan waa ku saxsan yihiin ma oran lahaydeen idinku dadkiina fikrada kala qabo? runtii baarlamanka waxaa loo dhisay in ay ku shaqeeyaan xubnaha ka tirsan golaha shacbiga go-aan ay ku gaaraan ooga doodaan wixii ajendayaal ee hor yaala. marka baryahan dambe wax badan baa waxaa iska bedelay qaabkii baarlamanka uu shaqeyn lahaa ama uu shaqeyn jiray. baarlamanka kala fadhiyo ayaa maaragtay uu leeyahay sanadkiiba muddo cayiman haddii uu isaga uu shaqeyn waayo laftirkiisa uu kuweynayo awoodiisa sharciyeed. laakiin hadda baarlamanka waxaa moodaa mar uu iska xiran yahay iyo mar uu iska furan yahay labadaba aanan micno weyn aanan ku fadhinin. markii loo baahdana la furayo markii loo baahan yahayna iska xiran ee aanan sharci iyo nidaam uu markaasi haba yaraatee laftirkiisa uu maaragtay uu ku shaqeynayo aanan jirin. taa marka waxay keentay in xildhibaanada badi hadiiba ayaga ay doonayaan ama qodobo ama ajendayaal ama barnaamij iyaga halkii ay baarlamanka gudihiisa uga doodi lahayn inay la tiigsadaan hobeelo iyo meela aanan munaasab ahayn ayagoo ku andacoonaya mar haddii baarlamankii albaabkiisana laga xirtay furihiisana maaragtay iyaga ay guddoonkii siday doonayaan iyaga ay maaragtay xilligii doonaan ama inay xiraan ama inay furaan awoodii isku soo koreen. marka xildhibaan wuxuu ka badinaya yahay ama uu ka badin waayey inuu bareerihiisa hobeelada iyo meeshii uu arko inuu ku shiro halkaasi inuu kasoo yidhaahdo wixii asaga uu qabo. waata adigoo raalli mudane mar haddii marka sida aad u faahfaahisaba adigu
dhibaatada dadkaasi marka xubnaha baarlamaankuba ay ku kaliftay inay hotel meelo qaarkooda ku shiraanba mar haddii mataqaanaa aysan furihiina gacanta ku haynin baarlamaanka sidaad leedahay marna la furo marna la xiro aan laga warqabinba marka waxa ay ku doodayaan marka miyaanu xaqayn dastuurka markaa qodobka 15 in la markaa la burburiyey runtii sharciga isaga waa wax qoran kalexleexashana male sida asaga uu u qoran yahay laakiin in la fuliyo ayaa muhiim ah caliyow marmarka qaar qaladka dhinaca guddoonka keliya uma maaragtay dhigayo aniga waxaan u arkayaa marmarka qaar xildhibaanada haddii maanta aan saaxiibadayda runtii dalishooda sida aan xaqa ah ayagana aan u siiyo waxay ku yeelanayaan qayb maxaa yeelay guddoonku haddii sharci ah waxa lagu haysto baarlamaankana waxa uu ku shaqeynayo uu yahay sharci iyo nidaam ama ahdi iyo heer hoosaad qof welibana uu u dhaartay inuu fuliyo dhaartaasi wixii asaga uu meesha markuu dhaaranayo u cadeeyen ay tahay inuu ilaalinayo qodobada ku qoran ahdiga qaranka iyo heer hoosaadka baarlamaanka maxaa keenaya laba xildhibaan inuu midna inuu yidhaahdo aniga sharciga qodobka noocaasi ah ayaa waxaan ku haystaa xadgudub uu ku sameeyey guddoonka ama xildhibaankaasi maxaase keenaya marka xildhibaan wuxuu isaga uu ku taageeraya ama uu ku diidan yahay aanan ku cadayn xeer ama ahdi inuu maaragtay kaga soo horjeesto asagana xildhibaan kale ra'yiga iyo qodobka asiga uu markaasi uu leeyahay waa lagu tuntay marka mar weliba nidaam darada iyo ku dhaqmid la-aanta iyo maaragtay qadarin la-aanta sharciga iyo xasaanada xildhibaanka ee marmarka qaar ay noqoto midaanan waxba maaragtay kuweel aanan ahayn waxaa in suurtageliya xildhibaano oo aanan u bislayn waxa u qoran ahdi ahaan in loogu dhaqmo loona dhaariyay markiisa hore balse caabifad ay hogaaminayso iyo hadba xaaladii markaasi ay jirto oo iyada ay noqonayso mid kicisa ama mid mudan adigoo raallia marka waxaad moodaa nin siyaasi weynna waa tahay soomaaliyeed in labada dhinacba guddoonku iyo xubnaha baarlamaanka wada dhinaca hotelada ku shirayba in aad adigu un markaas aad midna aad dhinac u reebi laadahay oo aad barbar simaysid toos ma u abbaari kartaa adigu dhinaca arrintu ay ka cakirin tahay oo aad isleedahay qaladka waa leeyahay oo dhinacaas unbay ka burbursan tahay arrintu dadka ku dhagaysanayan ummadda soomaaliyeed si ay ugu baxaan jahwareerka siyaasadeed oo hadba soo ifaya caliyo aniga markaan runtii xaqiiqada sida ay tahay aan u abbaaro guddoonka uu leeyahay daliil iyo markaasi in isaga uu aqbalo oo arrintaasi inuu korto loo baahan yahay sababtoo ah baarlaman wuxuu ku shaqeeyaa matalo midaysan iyo cod lagu kala baxo hawshiisana wuxuu ku gutaa xaruntii loogu talagalay ayagoo xildhibaanadana si siman loogu xaqsowrayo codkoodana loo wada tixgelinayo berihii dambeba baarlamaanka waxaa ka jiray kooxaysi dawladda dhammaanna waxaa saameyn ku yeeshay noocaas had iyo jeer kooxna waxay isu arkaysay inay iyada ay tahay mid guddoonka xiriirka iyada ay la leedahay xildhibaanada intooda kale ay iyaga kaga sarreeyaan wax weliba oo markaasi hadduu khaldan yahay hadduu saxsan yahay guddoonka uu soo saaro ay si indhalii ku taageeraysay mudan adigoo aada u mahadsan faahfaahinta dheer umuurtaasi aad ka bixiso waana kaaga mahad celinayno bal haddii aad soo koobtid adigu un baan rabnaa marka toos hadda inaan kugu soo leexino su-aal adiga ku gaar ah mudane waxaad ka tirsanayd guddoonkii hore baarlamaanka soomaaliya adigoo ka ah guddoon ku-xigeen koowaad ee baarlamaanka soomaaliya markaa alla markii markaa umuur ay dhacday oo isbedel uu markaa yimid guddoonka ku yimid adigu markaa waad ka dhiidhisay oo dhowr meel baad warqado ku qoratay adigu markaa kugu muuqatay inaad dastuuri ahaan aad u taagan tahay goor dambane waxaan aragnay inaad adigu markaa kusoo ururtay ood ku hartay xildhibaan keliya oo baarlamaanka soomaaliya ka tirsan ma wadaneed adigu kugu jirto darteeda wadaneed ahaan baad isaga cafis xaqaagii maqnaa
مسافة الصورهان ولا كالي والله مركز حقيقة كهذا عليه كل مطر مالية ناس في الجبتة أبيتها في نفسي وحال مرة لبا أنا ما أدري دارا عن شيء مي مركي وراء لو أنا بسومالية أنا شروط الآن يقول دورتي في سوماليين مواطن سومالية وحوالياتي أو مركز جوني أو يقول لنا هي أنا بقالة أيوب يوم عارف أنا شغالين كافي أنا مرة لبا وهي ما قدرين كذا يقينين كذا قبل بقول كذا في الإنسان في نفسه وديري جدود في إنسان تبقى كنتم مقطعي رجي بوجودين كافي إني معرفتي في إف جي مركز جرتي شغال المدور ومركو يعزلين مدحوين عبد الله يوسف وإستاذنا كسماع مدحوينها يجي كل جينا عليها معها إنت يمين ومطر هذا يكبر السنة هاي دورشين جدودي إنه في حق بعض شنت بقول كنتم إلا يبقى الباطل يسلموا صدره وتنازل ما يسميان أنت هره أنا بقول لك كسر مكان وقتي أنكو شقين من البيضاء ووحي أنت أنا العراهين يقولون جبت إني فرصت وهلا رضي كسر الديال إني ورقاتان وإدعان أنت أصور دبعته أنا بقول عليه دولنيات عائل يطوالي الشيء إنه بالله أريد في النبوة الريح لشيء أيام مركي من أيضا أنا يجري مقدسه مال البرلمان كوكشرو مال الفريستو مال الكهرسرو ومرنا وكالة الجديد كلا فريسنا مالك يسوع كاجل جسوا بيره مالك كلا قبل كلا إيمانه برلمان كوا بلندابي أو هابانه أنا ومركي بند كل قبل جديني إنه برلمان كسو وشقين لها ولي مقو أماد أنا كنفسه جابني وكالة الجديد في شرع الإسلام في وضع كلا يتبقى هو رئيسه يكي بدأ ما أرتي مركزي مركزي وكتابنا رجل بيري بدينا وأنا عنه عين مثل هذا أنا بدال عن أوفي قلنا إن برلمان كأوية شحرون ولو هذا وكش بين كرو جوري أمد عن بيعترني وعن بقولني وبرلمان كأوية شيء مال لو هذا ومركز كذب وكش بين كرو أي كاجنت هاي أيها اللي بعنو وأيها مركزي سجار ما أعرف اللي قصوا معركة شقية مسكحيا إيوه معنويا أيها حكومة إيوه مركزي وحي اسكوبو كاشلين بدولكي أو تي إف جي تكذنا كري أنيغا إيوه شقال المدولة إنتي كل أعرف أي النقطين مع القلبي معركة الجزيرة ملحويني برايم منستركي أيها وحي كوري ياين أنيغا إيوه شقال المدولة بدولكي تكذنا إلي إنجلاب بيت أنا كود داونين إني كوكاتان 4-5 haddii ayaga ay suuroobi weydana sharci darrada wixii ay ku kici karaan si baarlamaanka ayaga ay ula wareegaan baarlamaankiiba ay kula wareegeen wax kastaba oo ayaga ay ugu suurta gashado haddana markuu sheekh aadan madoobe isaga uu iska casilay aniga wataan diiday sharcigan aan ka cuskaday maxkamadda sarena aan aaday maxkamadda sarena attorney generaalka xergalaha guud uu ku dhawaaqay inay sharci darro tahay nin taagan oo aan iscasilin oo aan geeriyoon oo aan dembi lagu qabsan in la yiraahdo xilkaayii waa loo tartamayaa nin kale la geynayaa laakiin darada marka baarlamaanka annaga intii annaga la isqabqabsan lahaa madaxweynuhuna arrintaas uu soo dhexgalay ama xalinayo uu yiri maxkamadii sarena ay miiska soo saartay go-aankii sharci darro inuu yahay inta dowladii soomaaliyeed dhammaan iyada mar haddii shacab madooben uu meeshii uu iscasilay anigana doodayda maxkamad sare ay taagan tahay wax welibana ay cadkirmeen intii baarlamaanka soomaaliyeed darteeda uu burburi lahaa aniga waxaan qaatay inaan tanaasulo oo aan ilaahigii shalay darajada uu siiyey maantana inuu joogo dadnimadii iyo wixii ummadda soomaaliyeed ay ugu qiimaysay aan xoolana ahayn laaluushna aanan ahayn qabiilna aanan ahayn mar weliba inaan rajadeeda anoo qabo iyo madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya oo kitaabka alle madaxa uu iga saaray marka laakiin adigu waa laga keeni karaa baad hadda leedahay madaxweynaha iyo baarlamaankugu laakiin ma qabaa يعني كمالا أكورد مقبا تا يدوا إن ذات برلمان قدوم اللي وحنا كين كرو مدحوينا وحنا كين كرو مدة السنة كا الله أكبر عليه كمالا أكورد قدر كيسا وهرية وهرية وحكست وهل كان كورا وإلا وافجية أحد يشرعنا مركا أحد وهرية وحكست الشرعية أي تسرية qof yaribana wuxuu la yimaado khalad ama meelka dhaca ama qaranimada soomaaliyeed maaragtay lid ku ah
ama hantida ummadda soomaaliyeed iyo jiritaanka ummadda soomaaliyeed wax maaragtay kasoo horjeeda isaga la yimaada in lala xisaabtamo lana mariyo ciqaabta uu mudan yahay xilkana laga qaado impeachmentana lagu sameeyo motion iskaba daayo waxa intaba ay ku caddahay shuruucda iyo ahdiga noo degsan ee qof waliban uu dhaartay ninna ma la dhihi karo wuxuu doono ha sameeyo mana lala xisaabtami karo mana lala hadli karo meel ay ku qoran tahayna ma jiro warqadaasi 9 qodob ku yiileyn waxaa ka weyn ahdiga iyo xeerka noo yaallo oo caalamka nagu aqoonsan yahay 17 qodob ah marka qaarkood xildhibaanada qaarkood oo aan la kulanaba ama ay waxay aragtaa ma qabaan in adigu talxa waxaa la yidhaahdaa ninka ugu socdaala badan dibadeena uu ka tirsan xubnaha baarlamaanka soomaaliya inaad adigu tahay safaradaada aad u badan yahay adigu sida lagu arkaayo ma isu aragtaa mudan wallahi hadda meeshaan tago dadka soomaaliyeed iskama qariyo wixii iyaga ay markaasi ay qabaan ayaan maaragtay badanaaba aan la qaybsadaa meelaha iyaga ay markaasi ay doonayaan in maaragtay mas-uul soomaaliyeed markuu yimaado inay kula hadlaan goobahaasoo aad moodid maaragtay sida la igaga helo oo aanad looga helin badi dadka baxa oo marka iyaga ay tagaan hodheeladoodan aanan dadka badanaaba fursad loo siinayni inay soo booqdaan keliya un baan ku kala duwannahay mooyaane dad baa iga socod badan balse laakiin meesha ay tagaan nin xabsi ay ugu tagaan iyo nin ay maanta jaaliyad soomaaliyeed nin ay joogto ay soo salaamaan iyo shacbiga soomaaliyeed ee iyaga ay u tageen inay meel un kafee iyo shaaha kula cabaan iyo intaasaad moodaa xoogaa inay dheeraad igu tahay mooyaane socdaalka waa laga badsadaa aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa brofesor maxamed cumar dalxa oo ka tirsan xildhibaanada golaha baarlamaanka ee soomaaliya horena u ahaan jiray gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha baarlamaanka soomaaliya oo caawa martii looga haa barnaamijkan runta ka sheeg qadka dhexto hoos ugu jiray isoo ku sugan caasimada soomaaliya ee muqdisho brofesor dalxa waad mahadsan tahay adigaa mudan calow natiijada soomaaliya waanu mahadcelinaynaa dardarka cusub ay kusoo gashay hawada iyo barnaamijyada xubnahaada ay usii geliso ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waxaana noqon doonaa saaxiib joogto insha allah anoo ku taageersan dagaalka ay wado insha allah dawadiga shana qiimaha leh Soomaaliya intaasi waxaan kusoo gabagabeynaa barnaamijkeena runta ka sheeg dhinaca farsamada waxaa gacan weyn iga siiyay injineer Cabduqaadir Sheekh Cali inta barnaamijkan mid lamid ah dib ugu kulmi doono waxaan ku soo idin nabad geliyo hawlaha arlada haddi lagugu aamino ummadda uu sabeegiyo adeega laga dhigo qol oo lahaa runtaa ujeedadiisa ayaa laga rabaa ay furan idinkuma arkaysid shaqaha aadin ay furan idinkuma arkaysid qaranka iso min xilqaaday eed qadiya awlaha asnadaha haddii lagugu aamino ummadda uu shaqeeyo adeega laga dhigo orodiyo wax qaba aslubsanan ayaa laga